Bangiga DNB oo ah bangiga ugu weyn guud ahaan dalka Norway uguna shaqada iyo macaamiisha badan ayaa lagu soo waramayaa in ay soo wajahday cillado xagga tiknoolajiyadda, isgaarsiinta iyo khadka kala duwan ee uu bangigaasi adeegsanayay. Arrintan ayaa soo bilaabatay maalinnimadii shalay waxa ayna socotaa ilaa iyo hadda iyadoo aan la saadaalin karin xilliga xalka dambaysa laga gaari doono dhibaatooyinka kala duwan ee bangigan soo wajahay. DNB oo ah bangiga ugu weyn guud ahaan dalka Norway uguna macaamiisha badan ayaa lagu soo waramayaa in uu hakad galay dhanka kaararka isticmaalkooda, xawaaladaha kala duwan ee digital iyo lacagaha kala duwan iyo sidoo kale akoonnada macaamiisha, taasoo dad badan uu u shaqay waayay kaararka kala duwan ee bangiga uu bixiyo maadaama adeegyada kala duwan ee bangiga ee digitalka oo ay dadweynaha aad u adeegsadaan ay iyaduna cillad soo wajahday. Ayuu sheegay bangiga in uu raaligelin buuxa ka siinayo macaamiisheeda, waxa uuna intaa ku daray in ay hadda ku howlan yihiin xalka iyo sixitaanka qaladka kala duwan ee isgaarsiineed ee bangiga haysto. Vidar Korsberg oo ah madaxa isgaarsiinta bangiga caalamiga ah ee DNB ayaa isagu xaqiijiyay in ay haysato dhibaatooyin dhanka IT-da iyo sidoo kale dhanka lacagaha iyo kaararka iyo adeegyada kala duwan ee uu bangiga bixiyo. Waxa uuna intaa ku daray in xal degdeg laga gaari doono, isagoo intaa ku daray in ay hadda ka shaqaynayaan sidii xal degdeg looga gaari lahaa. Waxa uuna intaa ku daray in ay kaararka hadda shaqaynayaan qaarkood iyadoo la adeegsanayo kaydka bangiga, taa oo uu sheegay in ay si kumeel gaar ah u sii shaqaynayaan. Dadka qaarna ay kaararkooda isticmaali karaan hadda iyadoo lagu howlan yahay in adeega guud la saxo oo khaladaadka jiro iyo khalkhalka soo wajahay bangigan oo ah kan ugu weyn dalka Norway la sixi doono. Arrintan sixitaanka iyo hagaajinta cilladaha soo wajahay bangigan ayaan la cayimin waqtiga ay qaadan karto iyo muddada ay arrintan sii socon doonto. Waxaa xusid iyo xasuusinba mudan in adeegyada kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen isgaarsiinta, korontada, aeroboorada iyo adeegyada kala duwan ee muhiimka ah in uu jira khalkhal guud oo soo wajahay guud ahaan qaaradda Yurub. Khalkhalkaas oo sababay cillado kala duwan oo soo wajahay dhanka isgaarsiinta, korontada, isu socodka gaadiidka kala duwan ee cirka, dhulka iyo badda. Arrimahan khalkhalka baaxadda leh ee dhanka tiknoolajiyadda soo wajahaya Yurub ayaa lagu soo waramayaa in hadda aanan loo hayn xalka dambaysa, iyadoo ay wadaan dadaallo kala duwan oo muhiim ah kuwa oo lagu saxayo loogana hortagayo cilladahan isgaarsiineed ee soo noqnoqonaya ee waayadan dambe looga bartay guud ahaan qaaradda Yurub. Halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.